xukuumadda Soomaaliland ayaa markii uu horeysay beenisay hadallada sheegaya in qurba joogta wadankani u dhalatay ay xagaaga inagu soo wajahan dalka imanaysa ay dalka ku soo gari karaan fiisayaal. Taliyaha ciidanka socdaalka ilaalada xuduudaha Soomaaliland Maxamed Cismaan Caalin Dayib oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa cadeeyay in qurba joogtu dalkooda ay iman karaan si shuruud la'aan ah, waxaana uu yiri iyo xilli aan ahaynba oo u baahan yahay in dalkiisa yimaado. marka ku noqday toddobaadadan maartay aan soo dhaafnay warar baa ka soo duulduulay dadka qurba joogga ah ee doonaya dalka inay yimaadaan bilaha soo socda June iyo July oo tigradii u sii diyaarsanayay inay la kulmeen inay yiraahdeen waxna loo diiday inaan nimaadno wadankii waxaana soo gaadhay warar sheegaya in qoraal ka soo baxay immigrationka Soomaaliland oo oranayaan qoraaladaasi waxa dadku waxay ku iman karaan dalka fiisa la'aan ma iman karaan. waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo isla markaana aan doonayaa inaad u baahisaan dadkeena qurba joogga ah ee dalka imanaya inaan waxba iska bedelin sidii ay u iman jireen 25 sanadood ay dhaafay. wax fiisa ah oo lagu soo rogay oo ay kaga maqnaan karaan dalkooda ama kaga cadibmi karaan haba yaraatee aad geesta kale taliyaha ciidanka socdaalka iyo ilaalada xuduudaha Soomaaliland Maxamed Cismaan Caalin Dayib waxa uu ka hadlay sida ay u xakameyn karaan dadka ajaanibka ah ee dalka ku soo qulqulaya, waxaana uu yiri dalkeena wax jooga ajaanib fara badan ajaanibkaas waxa weeyaan si sharciyana way ku soo galeen si sharci darrada way ku soo galeen waana inaga fara badan yihiin hadaan laga badnayna way badiyay waadina jiro way dareemaysaa aad buu dareemay dhibaatooyin inagu hayana way jiraan inaguna awood aynu ku qaadnay way gaabantahay awooddeena waynu ballan qaadnay dadka wixii noo yimid inaynu xeerarka caalamiga dhowrno human declarationska inaynu dhowrno waynu dowladdeena way ballan qaaday institutionkeenu wuu ballan qaaday hase yeeshee policyga dalkeenu wuxuu ku macaysan yahay securityga dalkeena inaynu ilaashano xaaladda taariikhda jirta ee geeska Afrika waxaa heshiis lagu yahay in dadka la xakameeyo dalalka ay ku socdaanna laga qabto isla markaana ay badan ku dhimanin oo la badbaadiyo lagana wacyigeliyo. وعبد السلام أحمد عود عبد الشرمني بولشة TV هرقيسة.